عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سود أول داوديال وأنا كابتن عبيس هالقاعد يجلس عتنا وزير كابتن عبيس. نيجي مصطفى عكشرها جيان كمال عن دباتك السعون مال عن دباتك السعون مجد. وهذا صعب بنام بحيا وحي كبرنا بحيا سينا بحيرا دون منه هارون دون منه. وقاب إمك باش حافظي درس كهابي قاعد ولا سقول دي منك. وهلك السياسة حمد الديجان كوي كتاجتها مصطفى عكشر متقنا مريس هذا سينا بحيرا دون منه هارون دون منه. waxaynu ku qaadaa dhigana maanta Mustafa Cagjar iyo deegaanka dhibaatada ka taagan iyo dadkii ku sugnaa qabalayga Daar es Salaam oo wali barakicinta iyo xasuuq iyo jirdilkii lagu hayo soo dhawaada yal fiidiyoga haduu idin soo gaaro si share gareeya si share fiidiyoga xagga sharta waa idin kama hayo xagga leegta xaggaas lagu badiyo ha loo geeyo Mustafa Cagjar qolku ku jibartu fadhiya ha loo geeyo fiidiyoga waxa wali ka socota qabalayga Daar es Salaam barakicin shacab ka socota oo bud ciidamada Liibooliska ayaa bud iyo waxay isugu daba wadaan dadkii jirdil iyo barakicin inta gawaari loola tagay ayaa dadkii awal la barakiciyay hantidoodii la burburiyay guryahoodii la burburiyay shingadoodii la burburiyay waxa la waxaysteen la burburiyay handana inta miyiga loogu tagay yaa waxa lagu daba wataa baabuur iyo budad iyo jirdil kale waan la wadaagi doonaa qabri bayax waxa ka socda isaga lama malayn karo qalaafe xasuuq uu isaguna ka geystay qabri daar weyn oogeen wixii laga geystay amxaarad ku geystay shilaabo weyn oogeen wadikii Mustafa Cagjar ha deegaankii meeshan kala hadalkii ka dhacay xasuuq ka dhacay ma taqaana meesha la yiraahdo ninka amxaarku ku geystay qabri daar hogaanka nabadgelyada wuxuu yiri isaga isdilay ninkii ma taqaana dilay Mustafa Cagjar wuxuu yiri waa la soo qabtay waa la toogtay balday waa labada macna wada kartan media anu hadda idin ma wado laakiin media ku jiraan labadaba wada arki doontaan TV deegaanka ku jiraan labadaba SRTV ku jiraan mid kale TV deegaanka ma aha kaas TV deegaanka ma aha TV shacab ma waa TV shakhsi way kaas shakhsi way TV waxaan rabana ka saar way waxaas kale TV yada lama dhikro aan idin la wadaaga bal xasuuq iyo ma taqaana barakicinta lagu hayo ilaa iyo hadda dadka ku sugan ma taqaana qabalayga la yiraahdo Daar es Salaam bal aan idin la wadaago ila daawada fiidiyowga waxay dadku joogan duur cidla cirsila bay dadku joogan waa geedo hoostood halkii geedaha hoostooda inta looga daba tagay ayaa handara laga sii barakinaya war waxan waa dulinimo iska celiya waxan iska celiya wariya hal iska celiya waxan in Cagjar iyo wax alla wuxuu wato hal iska celiya meeshan dawlad kama jirto nidaam kama jiro wax ka jira ma jiro in la iska celiya wallahi billahi taala dhalinyarada magaalo ya gobolada kiila raba la iska xidha kiil raba la iska soo daya wax ma taqaana dawladnimo la dhaho meeshan kama jirto qabri bay wada aragtaan wax ka socda heerka waxay maraysaa dadkii xaafadaha inta la isugu dhibay xaafadii dariskii sayna baxiiran doon ma maqashan sayna baxiiran doon mayno heer Haaruun doon mayno waliga yaalin ma maqashan heer hebel doon mayno siyaasi hebel doon mayno wad maqashaane xisbiga hebel doon mayno wad maqashaane miyaad maqashan heer Haaruun doon mayno waliga yaalin ma maqashan waa heerka ay gaarsiisan tahay siyaasadda iyo waxa meesha ka jira dawladnimada ee Mustafa Cagjar wato waxa ay halka ay gaarsiisan tahay way halka ay gaarsiin war waxan ninkii Cabdi Maxamed Cumar iyo Mustafa Cagjar dad is soo kordhigay arkaysaa ninkani dal ma hayo deegaan ma hayo shacab ma hayo ninkaas si hal cilad u bulaha in yaran baa lagu taqaan ninkaas yaa lagu yar dhaliili jiray oo ma taqaan ninkaas dhaliishiisu waxay ahayd xisbiga ururkii on alif iyo jeelka dhex xasuuqyo ka dhax noocaas xadgudubin noocaas ayaa ninkan lagu haysto Cabdi muhiimadda ugu weyn ee lagu eedan jiray waxyaabo dal baan ma taqaana dhici jirin xasuuq baan dhici jirin ciidan baan la go'doomin jirin oo ma taqaana la leyn jirin oo canfar iska xasuuq jirin
godoy mataqaana shalay mooye darrad wixii ka dhacay weyn ogeyn waa xilliga waxaynu marnaa amxaar intuu soo kaco askarta ay qoryaha ku qabsato handara dhagax lagu dilay gabigiisa qorigiina laga qaato ayaynu maraynaa waa godoy bay ka dhacday ninkaan ogeyn cid ka deegaanka waa laga warqabaa qallaafa waxa ka socda waynu ka warhaynaa iyo xasuuq iyadana ka socda war Mustafa Cagjar meeshan waxba kuma hayo meeshan waxba kuma yahay la iska celiyo qallaafa iska celiso qabri biyada ka joogo qoryaha qatan iska celiyo war dheer war iska celiyo wax waraa la iska celiyo wax meeshan dawladnimo kama soo socotee meeshan argos iyo dil iyo shacab ma ka soo socdee hal iska celiyo ciidan ma hayo dawlad ma hayo shacab ma hayo waxba ma hayo ninkani askarta ku dhimo askarta meeshan naga silcilay leeyahay canfarta ee bilaa macna naga dhimatay shirqoolka naga dhimatay xisaab male حسام مالي أنا أنت حافظت تشوفها أنت كل مطي حسام مالي والله بالله وح الله وحيكون أنت لما قرنيه دول كينا ويق هذا دينتان دول كهدي الله هيو معناه الله دول لما هيو عيد الله ما هيو وح الله وح الله هي مجد كل كل ها أنا كمان هاي عرفت وح بعيارة هو عيارة عيارة والله كان عسل وحنا وعيارة ورفاقة بعدين ماشي واحد يا ماشي وحبك كذا بتجينه ما كيبا طبعا قبل واحد ينوق هذا النصار waad u jeedaan dadku halkay joogaan waa geeda hoostood weeye geeda bilcil iyo qurac hoostooda oo ay ooda ku xidheen oo ay waabteen way waa dadkii la barakiciyay awal la barakiciyay waad u jeedaan ninkan la leeyahay Mustafa Cagjar deegaanka intuu joogay inta ku dhimatay inta qof ay dhimatay ama shacab ha ahaato xukuumaddiisu hadisho ama canfaru hadisho ama cid kale hadishe لبن سدح جبار بي والله يدقنتا حلي عبدي لي واحد لقنا نسي متقنا نيكاس لقو ايدايو سدح جبار بي والله يدقنتا وريكر الظلم بي وضع عد oo gabasho lahayn ninkan hal iska celiyo dawo kale oo leeyahay ma jirto hal iska celiyo waraa waxaan wax la dhawran kara ma bal dadka leeg masaakiinta ee guryahooda laga soo kiciyay awal in walba intuu haystay la burburiye jeengadiis waa la burburiye barkadiis waa la burburiye haddana waxa looga daba tagay qurac hoostood bay fadhiyaan quracdi baa looga daba tagay dulnimo weeyaan waxaan hal iska celiyo الفيديو كان هدين سجل سيشر قرية أدي أدبن إني سلامية وحني واحد دوران كرامه